madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland sidan buu u hadlay. gaabo gaalkacyo kale wey gaabo waa baraxay baynu u bixinaynaa daan baynu leenahay daan bay leeyihiin daantooda miyaynu rabnaa xildhibaan ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Somaliland xildhibaan Maycaab oo laga soo doortay Ceerigaabo gobolka Sanaag ayaa isaguna sidan u hadlay. habeen iyo riyo weeyaan ninka ku riyoonaya Ceerigaabo calan kale oo aan ka tawxiidka hay laga taagaya wallahi waad riyoonaysaa iyo bilaahi tallaah waxaan ku leenahay soo dhawow maanta nimankii Muuse Ismaaciil godkooda ayay biyo ugu soo galeen runta marka la isku sheego maxaa haray haddii uu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland uu yiri waa magaalo barax tiran waa magaalo ay kala qaybsadaan harti iyo isaaq ay kala qaybsadaan wuxuuna sidaa ula jeeday in laba maamul meesha ay ka talin doonaan maanta waan ka xumahay 100% inuu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland uu sidaa yiraahdo waana bahdil reer Somaliland ku socdo Muuse Ismaaciil iyo inta la dhalatay waxa loo baahan yahay inay si rag wax iska celiyaan haddii kale waxa weey Ceerigaabo iskaga soo wada baxa oo dad kale anu waxaan oran karaa maanta ninka Ceerigaabo difaacda ayaa leh nin kale yeelan maayo ama hartiba yeelan maysa laba maamulna hal suuq ka wada talin maayaan runta markaynu isku sheegno hal suuq laba maamul ka talin maayaan haddii aad iska celin weydeen saaqow haddii aad iska celin weydeen Muuse Ismaaciil uga soo baxa dadka iyaga leh runta fiican uga soo baxa waa haddii aad iska celin weydeen haddii aad iska celisaanna idinka xaq weyn xibeel soo dhawaada waxa weey channelkan haddaad ku cusubtiin subscribe saara muuqaalkan sii share gareeya waxaynu ku dul istaagi doonaa 3 qodob oo xaqiiqada abaaraya ayaynu ku dul istaagi doonaa insha Allah taala waxaynu ku dul istaagi doonaa ninkii Axmed Karaash loo oran jiray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland ayaa magaalada Ceerigaabo u kala qaybiyay 50-50 waxa uu yiri Somaliland 50 bay ka talinaysaa nimankayaga SSC la baxayna waxaanu ka talin doonaa 50 baanu ka talin doonaa kolka magaalada Ceerigaabo marka sida loo dhex istaago qaybtaana waxa qaadan doona nimanka SSC la baxay qaybtaana Somaliland baa ayaa qaadan doonta kolka barta waxa ka talin doona laba maamul ba ka talin doona waa hadal ka soo yeeray madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland sidoo kale nin lagu magacaabo xildhibaan Maycaab oo laga soo doortay gobolka Ceerigaabo gobolka Sanaag gaar ahaan Ceerigaabo ayaa isagu yiri walee iyo bileynayna ka talinayn laba calan laga taagayn magaalada Ceerigaabo mana noqon doonto magaalo dhex u ah laba maamul ama laba reer sidoo kale shalay waxa jirtay niman fanaaniina oo ma garanaysaa uu kamid yahay Ali Saki uu kamid yahay Maxamed Yare Maxamed Maame uu kamid yahay Mustafa Kaanti ninka la yiraahdo iyo waliba waxa soo raacay gabadha la yiraahdo Habbo Nuura afarta fanaan ayaa la siiyay abaalmarin baa la siiyay lagu abaalmariyay fagaaraha Hargeysa ee Khayryada bal saaxiibayaal sababta loo abaalmariyay waynu dul istaagi doonaa ee loo reebay Cabdi Jibaar Gacaliye ninkii yara amiire lagu magacaabi jiray Juwaari Janno iyo fanaaniin kale fara badan sababta looga reebay ee 40 qof loo abaalmariyay maxay tahay ana bartan hortiina soo dhigaya muuqaalkan mar labaad baan idin hadlaya muuqaalkan like saar sina share gare aad iyo aad baad mahadsantiin ninka Axmed Karaash waxa uu sheegay in halka magaalada Ceerigaabo ay u qaybsan tahay laba reer u qaybsan tahay sida awgeedna uu ma garanaysaa markaa isagu waxa uu yiri lama maamul ba ka talin doona SSC khaatuna qayb bay ka talin doontaa Somaliland qayb bay ka talin doontaa haddii kale anoo qaybtooda mar rabnaa qaybtayada ayaan rabnaa ugu taagan bal hadda ileego kale daan baynu leenahay daan bay leeyihiin daantooda miyaynu rabnaa daanteena miyay rabaan ma rabi karaan hadday rabaanna ma rabi karaan waa ku baaya ma rabi karaan waayahay ninka hadlayay waa Axmed Karaash ninkii la yiraahdo waxa weey Axmed Karaash waxa uu carabku ku adkeeyay waxa weey Ceerigaabo waa magaalo barax tiran waa magaalo 50-50 buuri 50 na hartibaale 50 na isaaq baale waxa weey anigu in badan baan magaalada Ceerigaabo ka hadlay in badan baan ka hadlay inay dhuldoon yihiin ee aanay deegaan ayna lahayn ay doonayaan deegaan ay leeyihiin in Somaliland ka taliso ma doonayaan laakiin waxay doonayaan dhul iyagu ay imika asaastay inay leeyihiin bal bulshada Ceerigaabo waxaan eegi doonaa qaabkii ragga ula macaamilaan maanta dhulkoodii doonaya haddii uu madaxweynihii hore
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland sidaa u hadlay maxaa laga sugayaa maanta kuwii xilka hayay ee maamulka SSC sheeganay ee hogaamiyayaasha sheeganay maxaa laga sugayaa waxa laga sugayaa inay dagaal ku dhawaaqaan in badan bay magaalada Ceergaabana hadalkeeda lagu celceliyay inta degmee hoos yimaadana magaalada Ceergaaba waynu naqaanaa maanta nimankii Muuse Ismaaciil godkooda ayay biyo ugu soo galeen runta marka la isku sheego maxaa hadhay haddii uu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka Puntland uu yidhi waa magaalo barax tiran waa magaalo ay kala qaybsadaan harti iyo isaaq ay kala qaybsadaan wuxuuna sidaa ula jeeday in laba maamul meesha ay ka talin doonaan maanta waan ka xumahay boqolkiiba boqol inuu madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Puntland uu sidaa yidhaahdo waana bahdil reer Somaliland ku socdo waxa weeye tii hore la isaga hadhay balse tan dabayaan la iskaga hadhin Muuse Ismaaciil iyo inta la dhalatay waxa loo baahan yahay inay si rag wax iska celiyaan haddii kale waxa weeye Ceergaaba iskaga soo wada baxa oo dad kale anu waxaan oran karaa maanta ninka Ceergaaba difaacda ayaa leh nin kale yeelan maayo ama hartibaa yeelana maysa laba maamulna hal suuq ka wada talin maayaan runta markaynu isku sheegno hal suuq laba maamul ka talin maayaan haddii aad iska celin weydeen isaaqow haddii aad iska celin weydeen Muuse Ismaaciilow uga soo baxa dadka iyagaa leh runtaa fiican uga soo baxa waa haddii aad iska celin weydaan haddii aad iska celisaanna idinka xaq weyn war qodobka isaga halka ayaan ka tagay xildhibaan Meecaad baa ii soo hadhay xildhibaan Meecaad waxa uu yidhi markii hore waxaan u haysanay nimanka SSC la baxay inay niman dhulkooda doonayay yihiin oo Somaliland naga baxa ku leh yihiin baan moodayay balse maanta dhul ayna lahayn bay doonayaan isagoo sidaa u hadlaya balile habeen iyo riyo weeyaan ninka ku riyoonaya Ceergaaba calan kale oo aan ka tawxiidka hay laga taagaya wallahi waad riyoonaysaa iyo bilaahi tallah waxaana ku leenahay soo dhawow dagaalada markay ka socdeen la saarad waxaan u arkaynay dad dagaankoodii dawladnimada diidan oo nidaam kala wada laakiin hadda waxaan u aragnaa nimanka halka ka soo dagaal cusub oo hor lama nihin dadkii deganaa ee weligood yaa loo deganaa waxa weeye intii doorasho qabtayda ay lahaayeen intii ay lahaayeen Muuse dalkii iyo ummadiiba nagu diray ay lahaayeen wata lagu soo dulguuray maanta inay xildhibaanadii magaalada Ceergaaba ogaadaan in maanta dhulkoodii la rabo maxay ka dhigan tahay xildhibaan Meecaad maanta maalintii uu hadli lahaa maanta waa maalintii uu aamus lahaa hadal yar iyo shaqo badan maalintii uu qaban lahaa weeyaan arrinta noocan oo kala waanu arkaynay siday waxay ku socoto waxa weeye maanta inuu ka hadlo meehayn inuu maanta xishoodo oo uu afka gacanta saaro oo uu hawl badan qabtay oo hadalkana yareeyo laakiin waa ilaahay mahadi haddii ay maanta xildhibaanadii iyo shacabkii halkaa deganaaba baraarugeen waa ilaahay mahadi weeye qodobka isaga bal isaga halkaasaan kaga tagaya waxa ii soo hadhay nimanka fanaaniinta sheeganaya ee Cali Saki ka mid yahay Maxamed Yare Mustafa Kaanti iyo Haboon Nuurayna tala yiraahdo shalay anigu waan joogay fakaaraha bila sharaf baa halka lagu guddoonsiyay ay qarinimadooda ku difaacayaan balse aamin Yare ayay dad xumaan raadinayaan ay yiraahdeen maxaa garxajisnimo looga reebay su'aalan idin weydiiyay Cabdi Jibaar Gacaliye magarxajis baa miyuna ahayn habar jeclo juwariijana meena habar jeclahayn iyo kuwa badan iyo Cabdi Fataax Saciid mid la yiraahdo filaya isaguna heestii uu ku jiray heestii Axmaar baa naga xiga Soomaaliyeed kala aynu lahayn waxa weeye kuwa maxaa hadaba loo abaal marin waayay ee kuwa loo abaal mariyay dadka aamin Yare wadooda waxaan leeyahay war waxa weeye waxba ka dhaxraadin waxba kuma jiraan haddaba aamin Yare iyo Cabdi Jibaar Gacaliye iyo inta kale soo raacdaaba waxa ay ka aamuseen heestii markay fircilin ka timid way ka aamuseen laakiin Cali Qaran Maxamed Maame Mustafa Kaanti iyo Haboon Nuura waxa weeye waxay mowqifkoodii bay ku sii taagnaayeen Somaliland inay dalkooda tahay bay cadeeyeen intaas lagu abaal mariyay laakiin kuwiina maxay dhahdaayeele waxa weeye aamin Yare waxa looga reebay ciida garanimo looga reebay iyo waxa looga reebay qabyaalad baa looga reebay waa ayaan darrada kale weyn waxa weeye ninka la yiraahdo Cabdi Jibaar Gacaliye heestan uu iska soo duubay Soomaali weyn ku raali gelinayo war waxa weeye haddii aad dalkaagii raali gelin weydo ummad kale raali gelinaysid anu garan maayo meeshaad ku socotid iyo meesha lagaaga yeerayo waxa weeye saaxiibayaal intaynu muuqaal lamida ku kulmi doono sidaa waxay ka tagayaan